Assalaamu calaykum. Waxaan ahay Ibraahim Aadam. Waxaan maanta wax ka ogaanaynaa waa maxay podcast. Waayadan dambe waxa aad u soo ifbaxayay dhanka Soomaali social mediaha waxa la yiraahdo podcast. Podcast ma ahan wax cusub oo hadda la curiyay, waa wax horay u jiray, balse bulshadeena waxa ay fahmeen hadda oo ay ogaadeen faa'iidada podcastiga uu leeyahay. taasi oo ka dhigan in bulshadeena Soomaaliyeed ay soo marayaan dhanka aqoon kororsiga iyo fahanka 2005 oo run ahaantii ahayd waayadii aan anaguba dhalanay, yacni dhanka teknolojiyadda markii laga tago, balse dhanka aqoonta iyo fahanka waxay ka dhigan tahay in aan soo marayno 2005. Podcast waxa uu jiray waayo badan ilaa back in 80s-kii oo lagu magacaabi jiray waxa la yiraahdo audio blogs. Sidoo kale waxa qoran in podcastigii ugu horeeyay in uu bilowday 2004 ama la soo daayay 2004, waxaana lagu magacaabi jiray audio blogs. Sidoo kale ereygan cusub ee podcast waxa laga soo qaatay device yar oo ay asalkeedu soo saartay shirkadda Apple oo lagu magacaabo iPod, iyo waxa la isku daray ereygii saxda ahaa ee ahaa broadcast iyo iPod ayaa la isku daray, kadibna waxa ay noqotay podcast ama podcast. Muhiimadda ma ahan in aan ka sheekeyno historiga podcast ee haddaan u galno muhiimadda iyo ahmiyadda mawduuceena. Caqabada jirta ayaa ah podcastiga waxa uu leeyahay qaybo kala duwan. Haddaba bulshadeena ama dhalinteena hadda bilowday in ay tabiyaan ama soo saaraan podcastiga ma tahay qaybtii saxda ahayd ee loo baahnaa. Halkaas ayaa caqabad ka jirta, waxa ayna keeni doontaa dib u dhac kale iyo in laga xiiso dhaco dhageysiga podcastiga, oo waxa dhici doona in aan ka fahanno fikir qaldan oo aan iska joojino dhageysiga podcastiyada anagoo aamini doona in aysan waxba nagu soo kordhinaynin dhageysiga podcastiyada. Haddii marka aan ka faaloono qaybaha kala duwan ee podcastiga uu leeyahay, midda ugu horeysa ayaa ah marka wax loo yaqaano scripted fiction podcast, taasi oo ah qormooyin mala awaal ah balse loogu talagalay in qofka maankiisa iyo maskaxdiisa lagu dhiso, waxna uu ka barto oo uu khibrad ka qaato, sida TV showga ama audiobooks oo kale. Ama buug qoran ayaa loo bedelayaa cod la dhageysan karo oo yacni tafatiran. Buugii ayaa la akhrinayaa, qof ayaa qabanaya, uu akhrinayaa buugii si degan, cod fasiix ah oo wanaagsan ayuu ku akhrinayaa, kadibna wuxuu ka dhigayaa cod la dhageysan karo. deedna halkaasi waxaa ka dhalanayo in ay fududaato in buug dhan oo aad yacni waqti badan gelin laheeday oo aad akhrin laheed oo laga yaabi lahaa xataa in aad ka caajisi laheed in aad inta labada dhagood xirato aad dhageysato. taasi marka waxay fududeynaysaa in qofka buugga uu dhageysto halkii uu akhrin lahaa. taasna waxay fududeynaysaa marka in aad ka maaranto in waqti badan aad geliso akhriska buugga. marka midan aad ayay muhiim u tahay. ilaa hadda cid samaysayna ma lahan markii Soomaali ahaanteena, laakiin waxaa jira podcastiyo kaleeto oo maaragtay buug English ah oo maaragtay English ahaan u qornaa, kadibna la dhageysto oo laga dhageysto baraha maaragtay lagu soo daayo podcastiyada sida podcast qaybta maaragtay taleefanada oo kale, iOS-ka ama Apple-ka waxaa jira application la yiraahdo podcast oo maaragtay uu leeyahay iOS-ka. waxaa laga soo degsadaa Apple Store-ka, waxaa ku qoran podcast. sidoo kale dadka Android-ka isticmaala sida Samsung-ka iyo taleefanada kaleeto waxay isticmaali karaan wax la yiraahdo Google Podcast. halkaas ayaad ka dhageysan kartaa. marka anagu ilaa hadda way jiraan dad maaragtay soo gudbiya kusoo gudbiya barahaasi. sidoo kale Spotify-ga xataa waa lagu soo gudbiyaa. marka way jiraan dad Soomaali ah aan arkay magacyadooda hadda ma xasuusto, laakiin kusoo gudbiya waxyaalo muhiim ah podcastiyadaas. midda labaad, nooca labaad ee podcastiga muxuu yahay? nooca labaad ee podcastiga waa midda maaragtay hadda dhibaatada ka jirto oo sida qaldan inta badan ay hadda u isticmaalaan dhalinta iyo dadka caanka ah ee maaragtay hadda bilaabay inay soo tabiyaan podcastiyada. marka middan labaad waxaa loo yaqaanaa interview style podcast. ayaduna waa waraysi lala yeelanayo qof markaasi bulshada wax ay ku tuhmayso, wax xoogaa aqoon ah ama khibrad ah ama ugu yaraan wax laga faa'iidayo. ma ahan in qof caan un iska ah inta la soo fadhiisiyo laga wareysto sida uu u nool yahay. hadda waa qof caan ku noqday
si kadis ah ama si iska malayacni ah. waana halka ay hadda u jihaysteen dhalinyarada caanka ka ah Somali social media. waana waxa macnaha iyo xiisaha ka qaadi doona podcast. ilaa hadda ma arag YouTuber soo saarayo interview style podcast oo lagu wareysanayo ugu yaraan ganacsade horumar ballaaran sameeyay. waxa ay soo fadhiisinayaan mid kaloo YouTuber ah ama TikTok caan ka ah. markaas ayaa laga hadlayaa ama laga doodayaa xiriir ma soo sameysay, meel qofaad xiriir la soo sameysay, xageed ka baxday, xageed ku dhalatay. taasina waa waxa macnaha iyo xiiso tiri doona dhageysiga podcast ama dhageysiga podcastiga ay bulshadeena hadda soo fahmayaan. marka halkaasi lagu qiimo tiri lahaa waxa wanaagsan maaragtay in la soo fariisiyo qof maaragtay markaasi horumar ballaaran sameeyay oo bulshadu ay wax ku tuhmayso ma ahan in qof si kadiisa ama si malayacni caan ku noqday in maaragtay inta la soo fadhiisiyo waqti lagu lumiyo. nooca saddexaad ee podcastiga wuxuu noqonayaa wax loo yaqaano monologue or solo podcast. midkan waa solo ama shakhsi keligii oo cidna wareysanaynin balse expert ku ah mowduuc gaar ah ama storyteller ah oo ka hadlayo wax markaasi macno sameynayo ama dadka wax ku soo kordhinayo. waxaana midaasi kaga mahadcelinaya kuna dhiirigelinaya Sahan podcast ama Aadan Sahan, walaalkeen Aadan Sahan. waxa uu leeyahay kanaalka Sahanka Xogaha. sidoo kale hadda markuu soo kordhiyay Sahan podcast oo yani qaabka uu soo tabiyana ay tahay qaab aad u wanaagsan, waana mid loo baahan yahay. sidoo kale waxaa sameeya walaal Cumar Inshaar ama walaalkeen Cumar Inshaar aad u taqaanaan ogaansho. waana kuwa sida saxda ah bulshada ugu talagalay in ay wax ugu soo gudbiyaan waxna ku soo kordhiyaan. halkan ayaan uga mahadcelinayaa walaal Cumar Inshaar iyo walaal Aadan Sahan. waxaan leeyahay halkaasi ka sii wada, waana mid maaragtay inta badan loo baahan yahay in la sameeyo. sidoo kale kanaalkeenana insha Allah taala midaas oo kale ayaan ku sameyn doonaa ama waxa loo yaqaano monologue or solo podcast insha Allah taala. mid afraad ama nooca afraad oo podcastiga uu leeyahay asaguna waa non-fiction storytelling. midani waa mid lagu soo gudbinayo sheeko si dhab ah u dhacday oonan ahayn qiyaali. waxayna noqon kartaa in lagu casuumo qofkii ay sheekada ku dhacday oo sida ooga waramayo ama qof khibrad u leh sheekada dhacday oo markaasi sidaasi ooga waramo, yani goobjoog u ahaa oo kale ama sheekada qofkii ku dhacday oo kale ugu sheekeeyay oo xogtan siiyay. marka waa non-fiction storytelling aad ay muhiim u tahay midan. yani waxaa laga qaataa khibrad nololeed oo dhab ah ayaa laga qaataa. mid u dambeyso oo shanaad yani ahmiyad saasa ma laha midani, waa midda maaragtay sidoo kale hadda ay sameeyaan oo kale waa conversational podcast. midani yani waa mid iska simple ah, waana iska wada sheekaysi markaasi ayadoo looga sheekeynayo wax iska madadaalo ah ama sportiska oo kale ama movie-yada oo kale ama markaasi wixii loogu talagalay in looga sheekeeyo. tani wax macno ah ma sameynayso. marka labada ugu muhiimsan waa monologue oo ah midda sologa qofka yani xog saxan soo gudbinayo, iyo midda kale oo ugu horeyso ah scripted fiction podcast oo ah in book audio book oo kale ama TV show oo kale. iyo middan afraad oo ah non-fiction storytelling oo ah yani sheeko dhab ah dhacday ayadoo la soo tabinayo. marka ugu dambeyn waxaan rajaynaynaa in aad wax badan ka fahanteen ama aad ka ogaateen micnaha dhabta ah ee podcastiga. insha Allah kanaalkeenan waxaan kusoo gudbin doonaa podcast waxtar u leh bulshada iyo waxyaabo aqoonta qofka ama garaadka kor u qaadi doona insha Allah. waxaan rajaynayaa marka in aad fahanteen bal podcastiga waxa uu yahay dhinac u socdo oo bulshadeenu maalmahan aad maaragtay ugu soo badanayaan. qof kasto inta kanaalkiisi uu maqlay podcast wax la yiraahdo oo soo gaday mic iyo dhagihii iyo inta soo fadhiisto ayuu leeyahay podcast ayaan duubeynaa asagoon wali soo daraasinin waxa xaqiiqada saxda ah ee podcastiga loogu talagalay ama waxa ay tahay in lagu qabto podcastingka. qofka markaasi sameynayo waxa la yiraahdaa podcaster, mowduucana waxa la yiraahdaa podcasting. qofkaasna markaasi hadii qof lagu marti qaadana wuxuu noqonayaa qof interview laga qaadayo markaasi.
marka waxaan rajaynayaa inaad wax ka fahanteen ama aad maaragtay markaasi aad fahanteen macnaha dhabta ee podcast. insha Allah next episode waxaan oga hadli doonaa luqadda Englishka, muhiimadeeda iyo waxa ka caawin doona in aad ku hadasho si fluent ah ama degdeg ah insha Allah. luqadda Englishka aad ay muhiim u tahay, laakiin saasay tahay haddana 90% bulshadeenu luqadii ma yaqaanaan, mana ku hadli karaan. ayagoo waliba intaas oo sano iskuul soo dhiganay, qaarkoodna laga yaabo xitaa inay u galeen English college loogu talagalay in luqadii lagu barto, balse ma aragtay markaasi aan wali u diyaarsanin inay luqadii communication ku sameeyaan ama kula xiriiraan cid kaleeto. insha Allah ta'ala halkaas ayuu mowduuceena ku egyahay. waa inuu next episode iyo mowduucaasi xasaasiga ah ku raaxayso noloshaada. assalaamu calaykum.